sallallahu calayhi wasalam. magiciisu waxa uu ahaa abuu mixjan athaqafi, allaha ka raali noqdee. waxaa ilaahay ku ibtileeyey cabista qamrada xilligii jaahiliyada intii aan ilaahay soo dirin nebi muxamed sallallahu calayhi wasalam. wuxuu kaloo ahaa gabyaa aad iyo aad u jeclaa qamrada, qalbigiisuna uu la dhacsanaa ilaa mar uu wiilkiisa la dardaarmayay laga qoray inuu yidhi, markaan dhinto igu duug geedka canabka dhinaciisa si lafahaygu u cabaan qamrada. marka unugyadayda dhiiggu ay dhintaan hana igu duugin dhul bannaan oo cidlo ah, waayo waxaan ka cabsanayaa markaan dhinto inaan qamrada dhadhamin waayo. markii uu soo islaamay abuu mixjan, ilaahay ha ka raali noqdee, weli naftiisu ma aysan ka go'in cabistii qamrada, waxaana uu la dhuuman jiray cabisteeda, iyadoo markii lagu arkana la karbaashi jiray. deeto waa la karbaashaa, isna waa uu ku noqdaa, misena waa la soo qabtaa oo waa la karbaashaa, misena waa uu cabaa. markii muslimiintu u baxeen dagaalkii weynaa ee qaadisiya ee lala galay farisiyiintii ciraaq 13 shacbaan sanadkii 15 ee hijriyada, waxaa abuu mixjan uu qayb ka ahaa muslimiintii u duushay ilaahay dartiis ee khaliifkii islaamka cumar binulkhadaab, allaha ka raali noqdee, uu u diray duulaankaas. abuu mixjan waxa uu xirxirtay qalabkiisii dagaalka, isagoo horay u sii qaatay sahaydiisii, mana uusan iloobin in xoogaa qamro ahna uu meel ku sii shubto, isagoo kadibna ku dhex qariyay alaabtiisii dagaalka. inkastoo saxaabigani jaliilka ah maandooriyahaasi laga kari waayey, haddana waxa uu ahaa nin marka dagaal ay noqoto aan xaggiisa cadow ka soo gelin, oo ah dagaalyahan geesi ah. waana sababtaasi midii cumar binulkhadaab, allaha ka raali noqdee, uusan uga reebin jihaadkaasi. boqorkii rutum ee farisiyiinta xukumayey waxa uu dalbaday inuu la kulmo hogaamiyihii muslimiinta sacad binu abi waqaas, allaha ka raali noqdee, oo ahaa ninkii cumar binulkhadaab u xil saaray hogaaminta ciidanka muslimiinta. waxaana markaa kadib bilowday in labada dhinac ee muslimiinta iyo gaaladu ay isku hub urursadaan. markii la tegay goobtii dagaalka, intii aysan labada ciidan fooda isdarin, waxaa la waayey abuu mixjan, allaha ka raali noqdee, oo shaydaan uu waswaasiyey, waxaana uu ka fogaaday ciidankii uu la socday ee muslimiinta, isagoo meel fog ku soo cabay khamrigiisii. laakiin markii uu ogaaday taliyihii muslimiinta sacad binu abi waqaas, allaha ka raali noqdee, in abuu mixjan radiallahu canhu uu falkiisii khamri cabista ku noqday, aad iyo aad ayuu u carooday, waxaana uu ka reebay abuu mixjan inuu ka qayb galo dagaalkaasi, isagoo silsilad addimada uga xiray, ugana dhex tegay teendho yar. markii uu bilowday dagaalkii muslimiinta iyo gaalada, oo abuu mixjan uu maqlay danankii fardaha iyo qayladii halyeeyada, ayuu ishayn kari waayey, waxayna naftiisu u hilowday inuu ilaahay dartiis u shahiido oo uu duulaankaasi ku dhinto, isagoo u adeegaya diinta islaamka. waayo xitaa haddii uu ahaa mid khamri cabista ku dheeraaday, haddana wuxuu ahaa saxaabi muslim ah oo jeclaa nebi muxamed sallallahu calayhi wasalam. abuu mixjan ayaa ciil dartiis inta ishayn kari waayey, waxa uu tiriyey gabay, isagoo yidhi, murugo waxaa kuugu filan in farduhu dhex galaan warmaha, aniguna aan halkan ku xirxirnaado. qalbiga ayaa i jabay inaan arko goobta dagaalka, iyadoo aysan jirin cid codkayga maqlaysa iyo cid i arkaysa toona, inaan goobjoog u ahaado islaamka oo gurmad iga dalbanaya, islamarkaana aanan u gurman karin islaamku kolkuu ii yeero. waxaan ahay mid maal iyo walaalo badan leh, way iga tageen anigoo keligay ah oo aan walaal haysan. kadib abuu mixjan athaqafi waxa uu ku qayliyey codkiisii ugu dheeraa, ilaa ay ka milicsatay xaaskii hogaamiyihii muslimiinta sacad binu abi waqaas. markay u timid ayaa waxa uu ka dalbaday inay silsiladda ka furto si uu uga qayb galo dagaalkaasi, isagoo ku dhawaaqaya inuu toobad keenay. wuxuuna mar kale ritay gabaygiisii, isagoo yidhi, sulayma, seeftayda isii aan cadowga ka dhargee, maanta seeftaydu dhiig ayay u ooman tahay, ifasax aan hal mar ku soo wareega goobta dagaalkee, kurbadu ha iga dulkacdo, qalbigaygana aan dabiibee, ballan ilaahay baan galay, ilaahay ballankiisana kama baxayee, haddaad iga furto inaan dib ugu noqonayn. xaaskii sacad bin abi waqaas, allaha ka raali noqdee, ayaa weydiisay waxa uu doonaya abuu mixjan, waxaana uu ku yidhi, ilaah baan kugu dhaariyey, iga fur lugaha iga xiran, faraska sacad ee balqaanaysii, waan soo dagaalamayaa,
haddii ilaahay ii qoro inaan shahiido oo dagaalkaas ku dhinto waa sidii aan doonayey. haddii aan nolol ku soo laabtana ballan ilaahay baan galay inaan kuu soo noqonayo oo aad sidii aan u xirnaa aad ii xirayso. abumixjan aad ayuu u baryey xaaskii sacad binu abi waqaas allaha ka raali noqdee ilaa markii dambe ay sii daysay oo ay silsiladii ka furtay, iyadoo siisay faraskii sacad binu abi waqaas ee lagu magacaabi jiray balqaa. abumixjan athaqafi allaha ka raali noqdee waxa uu xirxirtay qamiis bireedkiisii, waxaana isagoo wejiga duubtay uu sidii libaaxii ugu booday faraskii dushiisa, waxaana isagoo rajaynaya inuusan nolol uga soo noqon dagaalkaasi uu dhex jeexay cadowgii islaamka. muslimiintii oo cadaadis xoog la saarnaa ayaa waxaa u soo gurmaday dagaalyahan aysan garanayn oo jihada bidix ka yimid. ciidankii gaaladana siduu seef ugu garaacayay uga baxay jihada midig, misena ku soo laabtay oo jihada bidix uga baxay. muslimiintii oo yaaban ayaa ilaahay guushii siiyey. markii uu gabalkii dhacay ayuu abumixjan athaqafi allaha ka raali noqdee waxa uu ku laabtay halkii uu ku xirnaa, waxaana faraskii balqaa uu ku xiray barteedii. isagiina waxa uu ku laabtay teendhadiisii, kadibna waxa uu iska xiray labada lugood. sacad binu abi waqaas allaha ka raali noqdee oo ka sheekaynaya dagaalkaasi ayaa intii uu dagaalku socday sheegay inuu arkayey nin aysan garanayn ee ka dhinac dagaalamayay, waxaana uu mar niyadda iska yidhi, ninkaas sida uu seefta wax ugu garaacayo waxaad moodaa abumixjan, faraskana siduu u boodayo waxay is-shabbahaan balqaa. laakiin sidee ayay ku dhici kartaa? waayo abumixjan wuu xiran yahay, faraskii balqaana xabsigan uga soo tegay. markii uu sacad soo laabtay ayuu xaaskiisii weydiiyey aaway abumixjan. waxay ku tidhi, teendhadaas ayuu ku jiraa wuuna xiran yahay. faraskii balqaana aaway? waa kaas isagana xagga ayuu ku xiran yahay ayay tidhi. sacad binu abi waqaas allaha ka raali noqdee waxa uu xaaskiisii uga sheekeeyey sidii uu dagaalkii u dhacay iyo ninkii la garan waayey ee sida ba'an u dagaalamay guushana u horseeday muslimiinta, ilaa heer muslimiintu ay is yidhaahdaan armuu ninku bini aadam ahayne uu yahay malag alle idiin soo diray si uu garab idiin siiyo. waxaana sacad uu geesigaasi ku tilmaamay inuu ahaa ninkii ugu dagaalka fiicnaa dhammaan muslimiintii goobtaasi ka dagaalantay. kadib xaaskii sacad binu abi waqaas allaha ka raali noqdee ayaa u sheegtay in ninkaasi uu ahaa abumixjan athaqafi, ilaahay ha ka raali noqdee, haddana uu ku jiro halkii uu markii hore ku xabisay. sacad binu abi waqaas allaha ka raali noqdee ayaa u yimid abumixjan athaqafi, ilaahay raalli ha ka noqdee, waxaana durbadiiba wuu arkay faraskii balqaa oo dhiig uu ka socdo, isagoo kadibna xariggii ka sii daayey abumixjan athaqafi, ilaahay ha ka raali noqdee. waxaana uu yidhi, ilaah baan ku dhaartaye inaan maalin dambe kugu jeedalayn doonin khamri dartiis. abumixjan athaqafi ayaa isaguna ku jawaabay, anigana ilaah baan ku dhaartaye inaanan weligii dambe khamri cabi doonin. sidaas ayuu abumixjan athaqafi, ilaahay ha ka raali noqdee, kaga haray oo uga toobad keenay khamrigii, isagoo ka mid ahaa asxaabtii nebigeenna muxamed sala allahu calayhi wasalam ee u soo halgamay diinta islaamka ee aan maanta macaankeeda ku raaxaysanayno. waad ku mahadsan tahay daawadaha qiimiga lahow inaad nala soo gaartay halkan. nagu soo biir oo sabskribe dheh barteenna janaad si aad u hesho qisooyinka saxaabadii rasuulka sala allahu calayhi wasalam. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.